bariire oo hoos tagta degmada Dowlada gobolka Shabeellada Hoose militariga Soomaaliya ayaa u ruqaansaday kowdii bishii May waxaana ay ka xoreeyeen nabadiidka al-shabab cidamada oo watay gaadiidka gaashaaman iyo hub culus ayaa saacado badan waxay ka fakarayeen galitaanka magaaladan si waxyeelo looga dhooro shacabka loogana badbaadiyo argagixisada waxaa ku yaala magaaladan oo badbaadin u baahnaa ka hor inta ciidanka aynu galin dhul beereed baaxad leh waa kheyraad ay qawaarijta al-shabab ka qariyeen ummadeena ciidanka marka ay gudaha u galeen waxa ay ka dhiseen fariisano ama difaacyo iyaga oo wehel u naqanaya dadka deegaanka waxa howlahaasi dhinac socday howlgallo tilmaaman oo lagu baarayay meelaha ay nabadiidka ku dhumaalaysanayeen halkan kama dhicin dagaal toos ah oo al-shabab ay kala hor yimaadeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya waxayna ka carareen bariire General Odawa Yusuf Raagi ayaa tagay dhulka ay al-shabab ka carareen ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay qabsadeen waxaana saraakiisha hogaaminaysa howlgalka uu sheegay in laga sugayo in si dhaqso leh ay ku gaaraan deegaanada Janaale iyo dhul kale oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose Abdiraxmaan Sheekh Umar Jeenin Qaar oo ah sargaalkii hogaaminaya howlgalka bariire lagu qabtay waxa uu kula dardaarmay ciidanka uu watay in talaab walba ay hore u qaadaan ay ku ilaaliyaan hantida iyo shacabka noloshooda waxaan shacabka Soomaaliyeed ugu bishaaraynayaa inaan kowdii bisha shanaad ee 2019 la wareegnay deegaanka bariire ee hoosta degmada Dowlada gobolka Shabeellada Hoose taasoo aanu la wareegnay saacada markay 12 subaxnimo howlgal aan qorshaysan ayaan soo qaadnay muddo dheerna la qorsheynayay haddana aan ku sii wajahanahay deegaamada Dowlada Mubaarak iyo Janaale taasoo ciidamadayada ku sii durki doonaan waqtiyada ugu soo horeeyay haddii Allah uu wada ogolaado aan tagi doono shacabkana laga xoreyn doono cadawga baahida la daalaa dhacaya iyo jahliga iyo faqriga dhammaan bulshada Soomaaliyeed Ramadaan Kariim bishii hore ayaa sidan oo kale al-shabab looga saaray Sabiid iyo Caanoole oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose oo hadda ay ku soo laabatay nolosha asaasiga ah gobolka Shabeellada Hoose haddii al-shabab ay waayaan meelaha ay ku dhumaalaysanayaan waxay ka dhigan tahay in badankeed Soomaaliya looga adkaaday